بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينها الريجي بوتي ملكستو جوكتين واديني سلام يا وحان ليا ابني وحلق فجعاء لدليلا لعنباريا ووحيابها قلن كان آن كدا وانو تلفزيون كقرهاتي وتلسكولي هاي halka waxa la soo bandhigaa caruurta agoomaha caruurta saboolka caruurta waalidadoodu ayna waxba haynin waxa kale la soo bandhigaa dad saboola oo gaajadu ay dubatay gaajadu ay dishay runtii dareenka iyaga aad bay u taabatay waxaad arkaysaa min tajurray ila ubukh من جيبوتي إلى علي سبيح وحيابا دادكي ري جيبوتي اي حق اولها اني حقو جهلان دادكي ري جيبوتي اي ان لسيو وحي واجب ودن كاي كلها ين هدي اي سابوليهين ايا وجيدودي تلفزيون كاللور دقايا ايا سيدي دادونتي سان لو تاقايا dadkii reer Djibouti waxa ay ku dhex noqdeen dalka dad qaxootiya bay noqdeen saboolnimadoodii ayaa keentay in lagu tunto lagu tarki falo sharaftoodii karaamadoodii xaqoogii wajigoogii magacoogii ilmaha yaree saboolka ee inay dawladdu waajibkeega ay gudato ay ahayd ayaa telefisyoonka loo dhigayaa wajigiisii baa dadka la hormarinaya markaasaa la isku wada taswiiraya oo waliba la leeyahay ilmaha yar markuu eegi waayo kamarada xagga kamarada u jeeso oo isku kay garab taswiir subhanallah 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 waa nasiib darro weeyaan taliska Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu halkaa soo bandhigay uu na tusaya naxariis darradiisa waxa uu na tusaya kutumashada uu kutumanaya saboolka waxa uu na tusaya karaamadii iyo sharaftii iyo izigii iyo magicii iyo wajigii qofka wadaniga uu lahaa xuquuqdii uu lahaa inuu ka doorbiday inuu horwado uu horsido uu ku tunto taliska Ismaaciil Cumar Geelle karaamadii qofka wadaniga qaxootiga Cali Cadde qaxootiga obokh yaale yamanta waxooga fadhiga lagu siiyaa oo bombay leeyihiin way sajilayeen wax kasta waa la siiyaa lama hormarmariya taswiirta marqura marka la sajilo waagi ay yimaadeen waxaan ahayn iya arkay maalin walba bil walba waxba la siiyaa qaxootiga Cali Cadde bil walba waxba la siiyaa qaxootiga yamanta lama taswiiro kamerad lagama duubo kuwii reer Djibouti ee wadaniga ee xaq laha ee sharafta laha ee karaamada laha ee dalkooga deganaa ee xuquuqdooda in la siiyay ahayd maalin walba kamerad baa la horwada maalin walba taswiir baa la horwada maalin walba waa la bahdilaya maalin walba waa lagu tumanaya maalin walba sharaftoodii baa meel lagaga dhacaya ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dhaqankeena iyo dawladnimadu وإني إلاليس شرفت إيا كرامة موادنكو ولياي وإني إلاليس حقوق ديسا وإني إلاليس كرامة قفك بلادنكو ولياي إلا تسماها قفكني إنو السبولياي إلا تسماها قفكني إنو قاجونيو إلهي سبحانه وتعالى بنادنك أو كرامة ديي إنك وحال الرباينا كرامة دينو تاليسك وحان ويارينا كرامة عيالك إلالية وجهوك إلالية مقعوك إلالية تاليسك وحان ويارينا إناي كان نغدان كفو جيغنادان فالحمدا إيا قرنكا إيا قشاشكا انت لا ترتميسين معارض انت لاديه واكا وحان قبرني محا هالكا كصوبحي وحاد قبتين اسكدايي وحا صوبحي سبول لمدى شرف درده كرامة لأنت دلكنا يا صباح دي دتكني بعد دلكنا قحوتي كده نقضي وهالك أن الدحل سيسين ويان راد هدانا هاي
waxaan ugu yeedhaynaa dadweynaha reer Djibouti meel kasta ay joogaanba in la soo celiyo karaamada iyo sharafta iyo magaca ummadda reer Djibouti in qof kasta oo reer Djibouti uu xaqiisa uu helo say taas u yimato isbedel baa loo baahan yahay inuu nidaamkani meesha uu ka baxaa loo baahan yahay si nabada inuu uga baxaa loo baahan yahay si midnimo inuu uga baxaa loo baahan yahay walaalkay Xasan Amarre halgamaagaas waxa uu ku sheegay dadkeena annagu aan dhex joognaa oo waan aragnay dad gubtay dad shiilmay dad gaajada iyo haraadka iyo dhibaatada iyo cadaalad darradu ay moodmoodisay ay karaatoon ay ka dhigtay Xasan Amarrena waan salaamayaa dadweynaha reer Djibouti meel kastoo joogtiina waan salaamayaa isbedel nabad iyo midnimo insha Allah ta'ala waan guulaysan doonaa talada haddaan annagu qabanana qof kastoo reer Djibouti xaqiisa uu helaya isagoonan lagu taswiirin isagoonan cajalad laga duubin isagoonan laga hadlin oo la odhanin hooyiya aabba ayaa soo diray timirtan ayaa soo diray khadra soo dirtay timir jawaankan sokorta ayaa soo diray Ismaaciil baa soo diray aw dawladii aw nidaamkii aw hay'adihi subhanallah ilaahayna waanu ducaynaynaa dalkeena ilaahayna waan ka ducaysanaynaa oo waana la baryaynaa inuu isbedel khayr qaba uu noo keeno jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato ummadda reer Djiboutina ha noolaadaan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh